دكتور سلبان عيسى حقل توسية وزيرك وزارة عافيمادك جمهورية سوماليلاند ونقضي سياسي وهذا هاي تبادل للدلكني سوماليلاند اي waxaa hambaliyay bogaadin maanta u diray xogayaha fulinta dawladda hoose degmada Burco Ismaan Maxamed Sheekh Ismaan Nuur taasi oo ugu hambaliyay sidii hawlkarnimada lahayd ugu hambaliyay musharaxa madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Saylic oo ka guuleystay tartankii musharaxnimada xisbiga muxaafadka ee kulmiye sidoo kalena waxa uu xogayuhu hambaliyadaasi la mid ah u diray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo taasi oo ugu hambaliyay sidii uu uga tanaasulay musharaxnimada madaxweynaha 5 sano ee soo socda xogayaha arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yiri wanaagsanaa uu ugu hambaliyay xagla toosiye wasiirka caafimaadka waa soo dhaweynaa ka madaxweynaha laftiisa wasiirka laftiisu si qiimo leh oo sharaf leh oo wanaagsan oo cod karnimo leh oo lagu diirsado ayuu goobta ka siiri waan aad iyo aad baan wasiirka loo salaaminaa uguna hambaliyayna hankiisa wanaagsan isagoo taabtay inuu yahay nin dhalinyaro ah oo aan ka quusan mustaqbalkiisa dambe insha Allah taala doorashooyinka soo socota ko madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo oo sidii qiimaha iyo sharaftu ahayd aan looga baran madaxda Afrikaanka uu uga tanaasulay musharaxnimadii insha Allah taala 5 sanadood soo socda isu sharaxi lahaa taasi waxay muujinaysaa madaxweynuhu inuu maanta arrin uguba oo dalkan ku uguba oo Afrika ku uguba oo taariikhda gelaysa inuu maanta halka ka sameeyay aad iyo aad baan ugu hambaliyeenaa waxaan kaloo halkan ugu hambaliyeenayaa musharaxa xisbiga kulmiye ka soo baxay Muuse Biixi oo runtii ah mujaahid halgamaa ah oo dalkan wax weyn u soo qabtay mujaahidiintii ugu waaweynaa dalkan magaciyo karaamada ku lahaa xaqna u leh maanta taa lagu doortay dadka laftooda doortayna hambaliyo gaaraan u jeedinayna وبرواقة محمد شبكة عالمي قادونا نيوز مقالة برعو